magacaygu waa Faysal Gaabo Maxamed Cali oo kuma arag goobe markaan hayto maadaama aan suuf ka shaqaysan jiray hooyo aabana ay korinin oo intaan xamaal ku noolahay maadaama wax ay gaareen kabacdi waan xawayar waan cidlooday kabacdina rafaadkii iyo qashinkii iyo xanuunkii markaan isku cilwaay ayaan Soomaalida u soo bandhigay kabacdi waxaan leeyahay bal waayaha waxay ku qaban karaan in kala aad 3 sano barna saanahay ari geelna ima deero walaal ii garab taagan ma jiro hooyo aabana waxay ahay xoog ii ahay kaasi waa wiilkan dhalinyarada haddana ku soo noqday dhalinyarada sheegay waxa waalid macnaha ku tiirsanaan jirin oo xoogiisa ku tiirsanaa haddana macnaha lugtaasay ka jabtay muddo dhowr sano sidaan uu ahaa dhowr jeerna daawo u qaatay haddana macnaha wax daryeelay oo saas macnaha maadaama ay jirin wuxuu sheegay in dhalinyarada inay caawiyaan uu rabo waxaan ka soo qornay lambara insha Allah wiilkan lambaradiisana waan soo gudbin doonaa waxaan jeclaan lahayn inaan caawisiin wiilkan walaalkiina oo ku magac dheer goobe insha Allah waxaan jeclahay inaad caawisaan jeclaan lahay walaalay dibadii meel ka jiraan meel ka soo jiraan waxaan jeclaan lahay inay soo caawiyaan meel boo jiraan ilaa halbo sayam jeclahay dhalinyarada aan ku soo biiri alxamdulillah markaas waxaan jeclaan lahay inay kor lisoo ogaado oo waxa ay tiri kartiin insha Allah Faysal Gaabo Maxamed waa wiilka halkaan nala fadhiya oo ku magac dheer goobo wiilkan walaalkeena wuxuu u baahan yahay la caawiyo wuxuu u baahan yahay caawimaadaas ay wax weyn maaha cid kasta wixii ay ku dhaantay inay ku caawiso Faysal waa wiil magaalada nala joogo insha Allah waxaan jeclaan lahayn annaga ahaanteena inaan ku bilaawno oo caawino sida macnaha halkaan ku qoran waa lambarradaan ay waxaan rabaa inaan idin yeeriyo cid kasta macnaha wax alla waxay ku soo caawin kartaa ku soo caawiso hadii aad u baahan tahay Kenya waan ku qorinaa hadii aad u baahan tahay Hormuud sidoo kale Ethiopia waan ku qorinaa numberka Kenyaatiga aber 7 41 27 39 aber 2 waa Kenya cid allaale cidii wax haysa walaalkiina ku soo caawiso sidoo kale Hormuud oo ah Soomaali aber 6 10 11 55 aber 2 kaasina waa Soomaali midda kale ayaan u badanahay dhalinyaradeenna maanta deegaanka joogto wiilkan walaalkiina aan soo caawino lambarka Ethiopian-kan waa inay yeerinayaa aber 9 16 93 96 14 lambarada waa kuwaanayta waa la soo qoray maxaana macna iska keensanima wiilkan walaalkiina waa u jeedaan lugtii waatana oo way jaban tahay anaha in la caawiyo u baahan yahay caawimaad degdeg u baahan yahay macnaha family problem haysta awgeed waxaan jecelahay walaalkiina aan soo caawino dhamaanteen wallahi